Naxdin yaab leh ayaa ka socota magaalada Nairobi gaar ahaan Islii. Koox isugu jirta wiilal iyo gabdho oo si farsamaysan uga xamaasha xaafadda Islii. Islii gabar ama garoob ma kaa joogtaa oo walaasha ma tahay, haddaba ka warqab. Qaab noocee ah ayay u xamaashaan wiilashan iyo gabdhahan? Sheekadoo dhammaystiran intaana u gelin, commentiga aan ku sheekaysan oo follow saara page-kan daawade. Waa haween u badan garoob iyo wiilal oo u soo shaqo taga ragga ka xamaasha suuqa Islii. Wiilashan iyo gabdhahan oo awoodda ugu badan saara ragga milkiilayaasha ah oo dukaamada iska leh, siiba qaab farsamo ay ku dheehan tahay oo weji dabacsanaan laga dheehan karo. Laakiin waxa ka dambeeya ayaa ah shil uusan saadaali karin qofka ay ku dhacaysa xaaladdan. Shilalkan dadka ka mas'uulka ah waxay isticmaalaan haweenka garoobka ah oo ay u diraan ragga lacagta leh oo jeebka weyn. Ma jiro nin day kara haween qurux badan oo soo martay meelaha la isku qurxiyo. Waxaa dhacay haweentii inay hesho nin ay dabin u dhigi karto oo ay guursato, ayna la joogto muddo bil ah. Kadib maxaa dhacaya? Wiilashii iyo gabdhihii soo diray gabadha ayaa macquula inay maxkamadda tagaan oo dhahaan gabar waalan ayaa naga maqan oo oobiga ku soo qortaan. Kadib ciidamo booliis ah ay soo wataan iyaga oo raadinaya gabadhii oo laga soo kordhaco ninkii gabadha si hoose u guursaday. Kadibna ninkii laga qaada lacag xoog leh. Lacagtaas uu ninku isku furdaamiyey maxaa lagu qabanayaa? Waa su'aasha ugu badan oo dadku isweydiinayaan. Xarfaantan waxay u isticmaalaan in kirada ay isaga bixiyaan guryaha oo ay magaalada ku joogaan. Waqtiyada qaarna waxaa dhacda marka ay lacagta qaataan iyaga oo dabagal lagu sameeyo, kadibna la soo ogaado xogtooda inay ahayd been abuur oo qaarkood dowladda xabsiga dhigto. Daawade, intii aad Islii joogtay, adiga wixii kugula yaabka badnaay oo aad aragtay, nugula wadaag qoraal ahaan. Waxaa laga yaabaa inaan documentary ka diyaarino si aan dadka ula wadaagno, maadaama dadku aysan ogeyn xogo badan oo xaafaddan yaala. Waxa dhibkaas keenana waxa waaye shaqo la'aanta iyo sidoo kale dhalinyarada oo aan lagula xisaabtamin meeshan, oo qof kasta waxa uu rabo uu sameeyo, walow waalidiinta ay ku biilaan halkan dhalinyarada. Xaalkuna uu yahay allow sahal. Bal aragtidaada ka dhiibo, maxay kula tahay daawade?